si ay isu ilowsiiyaan saxmadda magaalada iyo buuqa baabuurta tirada badan. Boqolaal u baahan inay bedeshaan jawiga ayaa dalxiis ahaan ugu soo baxa degmada Daynile. dalxiisayaashu ay soo jiiteen naacawda macaan ee nabadda, bilicda deegaankan iyo dooga dhirta cagaaran. Waxa ay yimaadaan maalin walba walow tiro ahaan ay ugu badan yihiin maalinta shaqooyinka laga nasto ee Jimcaha. Bismillah, ugu horreyn magacayga waa Maxamed Xusmaan. maanta waa marto maalin Jimcaha sida iska caadiga ah maalmaha Jimcada dhalinyarada iyo dadka bulshada ku nool Muqdisho waxay u dalxiisayaan goobaha loo dalxiistay magaalada Muqdisho. halkaan waxay kamid tahay degmada Daynile oo ah goob dalxiiskeedu aad u qurxoon yahay gaar ahaan xillida roobka markuu doo. marka maanta oo Jimcaha ah aad baan u faraxsanahay inaan degmada Daynile Jimcaha wanaagsan ku qaadanayo. waxaan leeyahay Jimcaha wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. bismillah, magacaygu waa Habboon Axmed Cabdi. waxaan u imid Daynile dalxiis, waa meel dalxiiska ku qurux badan in lagu damaashaado mudan. wallahi fikirkii aan ka aaminsanaa markii aan xagga ka joogay iyo markii aan imid aad bay u kala duwan tahay. marka waan ku haystaa magacaygu Cabdi Haybe Maxamuud, magaalada Laascaanood Kenya xarunta gobolka Sool. markaan xagga joogay waxaan u haystay gaar ahaan koonfur oo dhan inay crisis ka jiro, si gaar ahaan haddana marka la yiraahdo Muqdisho, si gaar ahaan marka la yiraahdo degmada Daynile waan maqli jiray laakiin isma lahayn sidaas ay amni u tahay oo intaas oo qof oo kala duwan dalxiisayaal caalamka dhan isaga yimid ayaa maanta ku sugan. waad aragtaa waxa baabuur taagan 500,000 oo gaari iyo dad oo kala ka badan baa jooga. intaasna waxay u yimaadaan dalxiis wadadan saqoon xataa, laakiin Soomaalida kala cusub degmo baaxad weyno. waa goor dambe oo habeen ah waxaana goobtan ku sugan mas'uuliyiinta sarsare ee degmada, mas'uuliyiin ka socda gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abuukar Cali Jacfar oo Universal TV ugu waramay deegaanka dalxiiska ee Daynile waxa uu sheegay in dadkan tirada badan ay soo jeedatay nabadgelyada deegaankan kaana qaaday. deegaankan waa deegaan iska qurux badan oo u jeeda ciidan arkana ayada way jeclaysan doonto inay soo fiirso timaado meeshan ay aragto. marka waa deegaan ay nagu manaystay oo Daynile dhamaa iska wada sidaan ah oo soo aragto maanta umaleynaa gabi ahaanba. marka waa meel nabadaysan oo dadku ay isaga dalxiisaan maalin Jimcaha ah inta badan la isku yimaado la isaga baashaalo. deegaankan dadku inay yimaadaan waxyaabaha soo jiitay cagaarka marka laga tago maxaa kamid ah? amniga kamid ah. inaan ilaa 5 saac 6 saac weynimo gabdhaha iyo wiilasha dhalinyaradu ay iska socdaan oo cid la hadlaysa jirin si nabad ay ku yimaadaan, si nabad ay uga baxaan meeshan ilaa ay magaalada. in dad dalxiisayaal oo tirada la geedin yimaadaan deegaanka soo booqdaan macna intee la geedin sameynaysa? wallahi wax aad u fiican waa deegaankan dad Soomaaliyeed oo soo booqanay gobolka Banaadir iyo degmooyin kala duwan ay ka yimaadeen. marka in anaga noo la yimaado la soo aado deegaankeena qurux la soo aado oo aad u danaynayna. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska ee degmada Daynile Joolaal Xuseen Cali ayaa isaguna nooga waramay amniga degmada iyo shaqada booliisku ay ka hayaan halkan. sadarkaysaanba ilaa degmooyinka iyo xuduudda la wadaagto inta ka dhaxaysa waa isla soo marnay. ciidamadana wax walba way degan yihiin, kuwa gaafmeerahoo dheeriyahoo ka shaqeeya ka hortagga. sadarkaysiinba hadda waxaa joogtaa degmada Daynile meelaha ugu dambeeya meel ka mid ah, waana xilli habeen waa dareemi kartaa amnigeeda inuu 100% yahay. inta dhiman ilaahan ka rajaynaynaa in ayadana ku guuleysano. aad ay u dadaalayaan ciidanka degmada Daynile iyo maamulka iskaashanaya.